Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa maxaa sababa maxaase lagu daaweeyaa timaha daata xilliga naasnuujinta. Inta badan xilliga naasnuujinta markay gabdhaha ku jiraan timaha ayaa daata, marka maxaa sababa maxaase lagu daaweyn karaa ayaa muuqaalkan kaga hadlaynaa. Soo dhawaada. Haddii ay tahay markii kuugu horeysa aanu soo booqataa subscribe noo saar, gambaleelkan furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Hadda familka ka tirsantaan like noo saar, asxaabtaadan usii share garee. Soo dhawaada mar labaad. Maxaa sababa markaan ku hormarno in gabadha xilliga naasnuujinta ay ku jirto timaha daata? Maxaa sababa waxyaalaha sababa haddaan ku hormarno ilaa iyo dhowr qodob aan kula qaadi doonaa. Tan koowaad horta waxaa waaye gabadha markay uurka leedahay hormoono waxaa jira la yiraahdo estrogen iyo progesterone hormoono la dhaho oo ku badan dhiigga. Markaysan uur lahaynin way kaga badan yihiin markaan saaid jirkeeda ugu badan yihiin dhiiggeeda hadii laga baaro. Hormoonada marka estrogenka iyo progesteronka ayaga waxay siyaadinayaan korinshaha tinta oo inta badan u fiirso gabdhaha markay uurka leeyihiin kama cabaadaan inta badan kama cabaadaan in gabdhaha timaha ay gogo'ayaan oo kale oo gabartii timihii ay daadanayaan oo kale ama timaheedii ay isbedeleen oo kale kama badanaa ma sheegtaan. Waa laga yaabaa marmar in timihii ay adkaadaan oo qofka timihiisa xilliga uurka leeyahay uu adkaado, laakiin inta badan ma dhacdo in gabadha tinteedii ay daadato xilliga ay uurka leedahay. Waayo hormoonkan estrogenka waxaa la waa hormoonka dumarnimada hormoonkan estrogenka wuxuu qayb weyn ka qaataa inay tintii dheeraato, korinshaheeda uu fiicnaado, tintiina tin fiican oo xajmi leh ay noqoto ay adkaataa. Marka adiga aad dareemayso somehow meeshaas ayuu yahay oo tintii way dheeraanay, way qurxoonahay, xogo adagna way sameeyay oo way adkaahay. Lan hormoonkan estrogenka ayaa shaqo ku leh oo waxaa la yiraahdaa hormoonka dumarnimada ayaa la yiraahdaa. Markay uurka leedahay gabadha labadan hormoona kacsan oo estrogenka iyo progesteronka marka tintii korinsho fiican ay helay. Maybe inaysan gabarta dareemin in tinteedii korinsho ay leedahay, laakiin waxay arki kartaa waxay tahay in tinteedii aysan daadanin. Haddii korinshii tinteedii ay sameynayso aysan dareemin, waxay dareemi kartaa tinteedii inaysan daadanin. Laakiin gabadhii markay dhasho markaas laba loo kala qaadaa gabadha markay dhasho. Markay uurka leedahay way ka siman yihiin in tinteeda ay fiican tahay qurxoon tahay, laakiin markay dhasho laba loo kala qaadaa. Gabadhay si fiican u nuujisaa oo sida loogu talagalay u nuujisaa cunugeeda naas kaliya siisaa tinteeda ma daadato. Waayo hormoon la yiraahdo prolactin oo ku shaqaleeya soo deysmada caanaha asagana wuxuu qayb weyn ka qaataa in uu yareeyo daadashada tinta. Haddii gabadha si fiican cunugii u nuujinayso markay dhasho kadib oo caano aysan siinayn oo kale oo naas kaliya ay siinayso gabadha waxaa ku yaraa doonto inay tinteeda daadato. Laakiin gabdhaha aanan naaska nuujinin ee ilmaha markay dhashaan caanaha siiyo kuwa si fiican tintooda u daadahay. Li'aana hormoonadii estrogenka iyo progesteronka markay uurka lahayd saaid ku ahaa dhiigga ee ka qayb qaadahaya tintii korinshaheedii waxeedii ka qayb qaadahaya hal mar ay dameen oo gabadhii markii ay dhashay hormoonadii eber ay noqdeen. Li'aana uurka bis la yimaadaan uurka doo baxana way la baxaan. Uurka la yimaadaan marka saaid ay ku yihiin jirka. Siyaadadaas ay yihiin siyaadada calashaan waxaan ka wada way la baxayaan xad loogu talagalay jirka bini'aadamka inuu ku jiro. Markii gabadha markii uurka leedahay xadka loogu talagalay ka badan dhiigga ku jiro. Haddii ay dhasho siyaadada wixii ahaa meesha ay ka baxayaan oo siyaadada ma jirayso markay dhasho hormoon kale waxa bedeli doona la yiraahdo prolactin oo ka qayb qaato soo deysmada caanaha. Haddii gabadha ay naaska si fiican u nuujisaa ilmihii ay dhashay naaskii caani tinteedii ma daadanayso oo maxaa lahaa hormoonkan wuxuu qayb weyn ka qaadanaa in la yareeyo daadashada tinta. Tinta uu ilaaliyo qayb weyn ka qaadanaa. Laakiin haddii aysan total naas siinaynin ee cunuga ay siinayso caano boqolkiiba 60 70 waxay u badan tahay gabadha tinteeda inay daadataa. Waxaa la dhihi karaa gabadha isku darto kala naas inay siiso caano siiso somehow daadasho way arkay laakiin ma sii farbadnaayis li'aana hormoonkii wali shaqo wada oo naaskii caano soo deyn iyo hool wada. Marka jira inay daadato maadaama caano inaas isku darayso laakiin ma sii badnaayis. Way ka yaraanay gabadha aan naaska nuujin ilmaha taas saaid tinteeda u daadataa. Okay, taas markaan kaga soo baxno oo tan koowaad ugu muhiimsan oo ah gabdhaha markay dhalaan kadib timahooda daata inta badan inay naftooda xisaabiyaan fiican cunugooda ilaa intee la eg ayay naas siiyaan. Kan kaloo keeni kara in tinta daadato waxaa ka mid ah cunto xumi nafaqa darro keeni karto in sida jirkeeda fitamiinaadka ay ku yar yihiin, borotiinaadka ay ku yar yihiin, in jirkeeda nafaqa darro ay hayso ayaa keeni karto.
oo gabadha haddii ay nuujinayso cunto fiican aysan qaadanayn oo kale ama nuujin ay kasoo baxdo oo kale ama xataa aysan gabar tahay oo ama aysan gabar ahayn oo laakiin xilligii uurka iyo naasnuujinta midna aysan ku jirin laakiin jirkeedii nafaqa darro iyo cunto xumi ay hayso way keeni kartaa in ay tintii daadato oo laana jirkeedii borotiinadii fitamiinaadkii wixii ayaa ku yar. tan saddexaad oo keeni karta inay timaha daataan waxaa kamid ah qofka inuu xaalad stress ah oo ku jiro oo kale uu qofkii uu maskaxdiisii ay buuqsantahay oo kale qofka qof nafsaani oo raaxa dareema uusan ahayn oo qofkii murug iyo meel ay kurabo kaga furan tahay way keeni kartaa inay tinta daadato ayadana. tan afaraad oo keeni karta in tinta ay daadato waxaa kamid ah in qofkii tintiisa uusan daryeel u sameynin, in uusan dhaqitaankeeda xilliga la dhaqaayo uusan ka fikirinin oo qofkii maalin walba in la shaleeyo oo tahay uusan shaleynin oo kale saliida uu marinayo uusan ka fiirin, shaambada uu marinayo uusan ka fiirin, hadba tii la yiraahdo tanaa fiican oo tintiisa ku tijaabiya. tintaada ma ahan meel wax lagu tijaabiyaa oo tii aragtid boo la yiraahdo waa fiican tahay aa marisaa, liana dadka jirkooda isku mid ma ahan, qofaa tintiisa qaleel tahay qofaa tintiisii aysan qaleel aysan ahayn, marka tan qofka wixii u fiicnaada ma ahan in adiga ku fiicnaahayeen. haddii waxaa laga yaabaa in labadan qofood ay kala duwan yihiin, qofka waxaan ku amaanay adiga inaad kala duwantihiin ayaa laga yaabaa oo qofkas u fiicnaado adiga ay kuu darnato ama qofkan u daranto adiga ay kuu fiicnaato. tintaada ma ahan iyo madaxaada meel wax walba lagu tijaabiyo, marka waxaa wanaagsan in qofka uu hal shaambe iyo hal saliid u sameysto isbedelna wuxuu dareemi karaa shayga inuu tintiisa anfacay inuusan anficin muddo 6 bilood kadib ah. 6 bilood ayuu qofku wax ku gaari karaa, laakiin haddii qofkii bishan uu shaambo keeno bisha dambe uu tii shalay uu meelaha ka fiirsho 2 meel uu ka waayo haddana tii mid cusub soo qaada haddana mid la yiraahdo tanaa fiican aniga tinta way bixisa uu haddana keeno qofkii tintiisii eber waa u dhamaatay. marka shaambo walba ku tijaabisa madaxaada, saliid walba aad ku tijaabisaa, haddana aadan ka fikirin dhaqamadeedii, aadan ka fikirin shaladeedii maalin walba aad shaleynaysa way keenay in tintii ay daadasho badan ay sameysaa. caadi ahaan meeqa loogu talagalay tinta maalintii marka in ay daadataa, qofka markastii maalintii waxaa loogu talagalay 50 ilaa 100 xabo oo tin ah inay ka daadato ayaa loogu talagalay 50 xabo ilaa 100. haddii ay 100 ka badan tahay waxaa la dhihi karaa qofkan tintiisa daadasho ayay sameynaysaa. see loo daaweyn karaa marka oo daawahan maxaa lagu daaweyn karaa, daawahan ilaa dhowr qodob aan kula qaadaynaa waxaana daawada ay ku xiran tahay sababta keentay. hadirtan ilaa 4 sabab aan sheegnay oo ah in tintii daadasho ay sameyso, 4taas qodob ay ku xiran tahay marka daaweynta. tan koowaad waxay tahay haddii gabadha ay dhashaa inay naaska nuujiso, haddii cunugeedu caafimaad qabo ayada ay caafimaad qabta alxamdulillah in cunugeeda naaska nuujisaa waxay qayb weyn ka qaadanay tinta daadashadeeda inay yaraato. qodobka koowaad taas waaye. tan labaad waxaa qayb weyn ka qaadan kara in ay tintii aysan daadanin qofkii xaalad stress inuu ku jiro waayaan dhahnay. qofka marka xaalad stress hadduu ku jiro kale ugu yaraan inuu isku dayaa in uu manage gareeya stresskiisa oo qofkii uu isku dayaa xataa hadduusan geli karin oo stress iyo murug iyo kurbo ay meel ka furan tahay waa inuu isku dayi karaa inuu silmaansii karaa oo kale uusan sii tix raaci karin uu ismadadaaliya qofkii uu qofkii xaalad stress uu ku jiro kale inuu kasoo laabta oo xaaladiisa naftiis ahaan oo raaxa dareemayso oo ka dhigaa. tan saddexaad waxay ahayd aan dhahnay waxyaalaha tinta daadiya waxaa kamid ah qofkii inuu cunto xumi hayso oo kale oo fitamiinadii borotiinada jirkiisa u baahnaay oo kale ay ku yar yihiin qofkaas oo kale waa inuu asagana cuntadiisii ka fikiraa uu nafaqooyinka tintiisa u baahan tahay uu ka fikiraa. tan dambe oo u dambeysa waxaan dhahnay tintii daryeel xumo inay ku keento ayaa laga yaabaa. qofka waa inuu hal shaambe iyo hal saliid uu daa'ima ilaa 6 bilood ayuu qofku ku ogaan karaa saliidan iyo shaambadan uu daa'imay tayadeeda. qofkiina waxaa loogu talagalay 5 maalinba ama isbuuc inuu 2 jeer dhaqo tintiisa, isbuucina qofka madaxiisa uu 2 jeer dhaqo. markii uu qofka saliid marinayo kale in lafta uu masaaj uu ku sameeyaa saliida uu masaaj kula sameeyaa. qofka markii maalin walba uu shaleysanayo kale in lafta maskaxda meesha tinta ay kasoo baxaysa lafta uu masaaj gareeyaa uu daliigaa inuu daliig u sameeyaa lafta liana qayb weyn ayay ka qaadataa korinshaha tinta markii lafta tinta daliig loo sameeyo. shalada qofka markuu shaleysa inuu 2 jeer shaleeyaan waxaa ka qurux badan in qofkii uu si fiican tinta u shaleeyo si maxaa la yiraahdaa dhiig fiican uu soo galo liana daliigan iyo shalada xoogo markii tinta loo fiicnaysi maaha tinta in jid lagu dhahay calashaan qof waxaa jiro tintiisii 5 daqiiqo shaleyna iyo qof 1 daqiiqo shaladii kaga baxay. marka tintii qofku waxaa wanaagsan in uu muddo waqti fiican ula qaato tintiisii uu shaleeya ma laftiina uu daliigaa.
qofkana shaambada iyo saabuunta inuu hal xabo uu daa'imaa ilaa iyo 6 bilood uu fiiriyaa haddii 6 bil kadib qofka inay ku xumaato u arka kadib mid kale uu bilaaba laakiin wax walbo lagu yiraahdo way fiican yihiin inaad madaxaada ku tijaabiso maahan intan ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalka haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkana fursi fiidiyowada cusub kuu soo gaaraan hadda familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaadan usii share garayso dhawaada